wardegdeg oo hadda soo baxaya waxa uu sheegay in ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iskaga baxeen xorooyin ay ku lahaayeen magaalada Balligubadle oo 60 kiiloomitir koonfur kaga beegan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. ciidamadan ayaa sida ay dadka deegaanku noo sheegeen waxa ay u jahayteen dhinaca deegaanka Shilaabo iyagoo dhaxda ka sii kaxaystay 5 baabuur oo ka soo jeeda dhinaca Soomaaliland. marka laga imaado baabuurta ay kaxaysteen ma jiro dhibaato kale oo ay dadka deegaanka u geysteen, hase yeeshee waxa aanay imika cidi ku sugneen xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada liyu booliska ee deegaanka Balligubadle ee gobolka Hawd. dhinaca kale wararka imika aanu ka helayna magaalada Wajaale ayaa waxa iyaguna sheegayaan in isla ciidamada liyu boolisku ay faaruujiyeen 2 xero oo ay ku lahaayeen degmada Wajaale. ma jiro wax war ah oo intaasi ka faahfaahsan oo ka soo baxay ciidamadaasi sababihii ay xerooyinkooda uga baxeen, hase yeeshee xiisada dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay kacsaneed kadib markii xilka laga qaaday madaxweynihii maamulkaasi Cabdi Maxamuud Cumar.